Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam waa mid ka mid ah nebiyada Alle. Nabi Ayuub nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu ka soo jeedaa wiilkii uu dhalay Nabi Isxaaq ee Ciise. Nabi Ayuub waxa uu ku caan yahay samirka iyo adkaysi aad u cajiib ah. Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam waxa uu Eebbe siiyey dhallinyaronimadiisii ubad badan oo 14 carruur gaaraya, xaas fiican iyo xoolo. Sidoo kale waxa uu lahaa dad badan oo u adeega kana shaqeeya hantida Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam. Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam waxa uu Eebbe ku manaystay beero waaweyn oo ay ka baxayaan dhammaan khudrado kala duwan, waxaana u dheeraa intaas nebinimo iyo cibaado badan. Waa nolol raaxo leh oo qof kasta ku hamiyo inuu ku noolaado. Muddo 70 sano ah ayuu ku noolaa nimco iyo barwaaqo. Balse hal mar ayaa waxaa isbedelay xaaladda Nabi Ayuub. Waxaa asiibay xanuun afarta adduumood kaga habsaday oo uu la kici waayey. Kadibna xoolihii iyo shaqaalihii ayaa ka baxay. Sidoo kale waxaa ka geeriyooday dhammaan ubadkii uu dhalay oo mid mid u dhintay. Nabi Ayuub nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, isaga oo dhulka yaal oo xanuun daran haya, ayaa loo sheegay in mid ka mid ah ubadkiisa dhintay. Waxaad qiyaastaa aabbe dhalay 14 carruur ah oo dhammaantood muddo yar gudahood ku geeriyoodeen. Waxaa ehelkiisa ka soo hadhay xaaskiisa oo ahayd haweeney fiican, waxayna noqotay gabar faqiir ah halkii ay shalay ka ahayd gabar hanti leh. Waxay dantii ku kalliftay inay shaqo tagto oo ay u khidmayso guryaha si ay ula soo baxdo nolol maalmeedkeeda. Nabi Ayuub nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waa samray, waxaanu ahaa addoon aan ka caajisin dikriga Eebbe. Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam jirkiisa waa idlaaday oo waxaa la dhahaa qayb jirkiisa ka mid ah ayaa marba go'aysay. Taasina waxay keentay in dadkii ka ag dhowaa ay ka haajireen, marka laga reebo xaaskiisa oo iyadu ku mashquushay daryeelkiisii iyo cunto siintiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayay xaaskiisa ku tiri Nabi Ayuub, maxaa Eebbe u bari weyday ha kaa dulqaado dhibta ku haleeshay? Nabi Ayuub waxa uu ku dhahay, ma xasuusataa intaas sano ee aan caafimaad qabay, xoolana haystay? Xaaskiisa waxay tiri, waa 70 sano waanaad caafimaad qabtay oo ku noolayd nolol barwaaqo leh. Wuxuu dhahay Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam, Eebbe waxa uu ii barwaaqeeyey 70 sano, miyaanan u samrayn 70 sano oo kale? Maalintii dambe ayaa 2 wiil oo la dhashay Nabi Ayuub ayaa dhahay, Ayuub dambiyada uu galay ayaa lagu ciqaabay. Markaasuu Nabi Ayuub maqlay, kadibna wuxuu baryay Ilaahay oo dhahay, Eebbow, haddii aad ogtahay inaan seexday habeen anoo og in cid beledka ku nooli ay baahan tahay i rumayso. Eebbena waa rumaystay. Haddana wuxuu dhahay, Eebbow, haddaad ogtahay in aan 2 shaati gurigayga dhigtay iyadoo aan ogahay ruux baahan oo aradan inuu beledka joogo i rumayso. Eebbena waa rumeeyey. 2dii wiil ee walaaladiisa ahaayeen way maqleen markuu Eebbe rumeeyey. Nabi Ayuub nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu u samray dhibkii muddo dhan 18 sano oo dhibka marba marka ka dambeysa ay ka sii daraysay. Ugu dambeyn xaaskii Nabi Ayuub waxaa loo diiday shaqadii, dadkiina albaabada ayay ka soo xirteen. Kadib markay aragtay inaanay wax cunto haynin ayay iska jartay timaheedii oo iib geysay. Markaasay ku soo gaday cunto si ay u siiso saygeeda. Cuntadii ayay u keentay Nabi Ayuub, markaasuu weydiiyey xaaskiisa meesha ay ka keentay cuntada, sababtoo ah wuxuu ogaa in shaqadii laga ceyriyey. Xaaskiisa way ka warwareegtay inay u sheegto warka, laakiin Nabi Ayuub waa ku adkaystay, waana ku celceliyey. Kadibna way u warrantay, una sheegtay inay gaday timaheedii. Nabi Ayuub markuu arkay in dhibtii meel aad u xun gaartay, ayuu Eebbe weyne baryay oo dhahay, Eebbow, dhibkii waa i taabtay, adiguna waxaad tahay Rabbi naxariista. Maalintii dambe ayaa farajkii Eebbe yimid, waxaana la faray Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam inuu lugihiisa dhaqaajiyo, kadibna istaago oo uu ku qubaysto biyo ka soo burqaday gurigiisa. Sidoo kale waxaa la amray inuu cabo biyaha, waxaanu isku beddelay nin dhalinyaro ah. Xaaskiisa ayaa timid guriga, wayna weyday saygeedii, markaasay moodday in bahal cunay. Kadib waxay aragtay nin dhalinyaro ah oo aad u qurux badan, markaasay weydiisay inuu arkay Nabi Ayuub calayhi salaatu wasalaam. Ninkii waxa uu ku yidhi, Ayuub aniga, oo waxaa ii shaafiyey Eebbahay. Farxad iyo damaashaad kadib, waxaa Eebbe qadaray inay xaaskiisu da'yaraato oo dhalinyaro ay ku noqdaan labadoodiiba. Sidoo kale Eebbe wuxuu u soo celiyey ubadkoodii, beerihii iyo shaqaalihii dhammaantood. Waa nimco iyo naxariista Eebbe, waxaana ku guulaystay ciddii samirta. Nabi Ayuub waxaa loo dhalay ubad ka badan kuwii hore, sidoo kale waxaa la siiyey xoolo ka badan kuwii hore. Waxaa la sheegay in dahabku samada uga soo dhici jiray Nabi Ayuub iyo ehelkiisii, waxayna ku noolaadeen nolol barwaaqo ah. Eebbena waa u ballan qaaday nolol ka raaxo badan maalinta qiyaamaha.